وننا موفي رياكشن oo aan ka sameynayno film lagu magacaabo 10 hours macnaha ama 10 saacadood sida u taqaaniin saaxiibayaal filmkan waa film Tamil ah waxa hogaamiye ka CB Satyaraj ninka lagu magacaabo iska aad dhalinyaro u ah ayaa hogaamiye ka saaxiibayaal April ayaana filmkan la daawaday April ayuuna ka noqday dhankaas iyo Tamil la duu sida darteed marka filmkan saaxiibayaal waa dambi baare aad ayaan u raaxaystay kaaga daranka filmka saacadiisa ma dheer waa 2 saacadood oo kaliya waliba 2 saacadood iyo ka yar waa waliba daqiiqadaha oo soconaya saaxiibayaal sida darteed marka filmkan qaabka uu iskaga daba wareegsan yahay adigoo filmka daawanayo ayaa waxa is leedahay okay ninkii dadka dilo waa oo hela dhag isla markii sheekada filmku waa isbedelayba waa hadda iyo koo wax oo fara ku haayo atooraha haba yaraatahay malaha filmka wuxuu ka bilaabanaa saaxiibayaal yaan in kaga hormarnay filmka wuxuu ka bilaabanaa gabar la weynayo ayuu filmka ka bilaabanaa saan marka uu furmaba baarisooba ku furmaa iyo gabar la weynayo saaxiibayaal atooraha marka gabadhii ayuu dabagalaa sheekay u dhiibay asagoo gabadhii la weysanay kiiskeedu ku jiro ayaa waxa haddana loo soo sheegaa filmka kala bar marka uu marayo bas laba basaska kamid ah ayaa waxa lagu dhex dilaa qof sida darteed maya waa la soo wacaa qolka oo waxa la soo wacaa oo call roomka ayaa la soo wacaa markii la soo waco waxa leeyahay bas hiblaayo taargadiisa sidaas ay tahay ayaa gabar lagu qashaada ayaa la leeyahay baskii markii booliska ay gacanta ku dhigaana nin meed ayaa dhex yaalo ninka meedka markuu dhex yaalo dadka baska saarnaan waxa la leeyahay yaa dilay lamaba yaqaanaba baskiina qofkii waa uu ku dhex jiraa waa uu dhintay dadkii gaariga saarnaayna wax dilana ma yaqaaneen sidaa darteed markii aad daawanaysid filmka adiga dhan jah wareera waxa is leedahaba atooraha wax baaraya adiga miya is leedahay mar waxa uga shakinay qofkan mar waxa uga shakinay qof heblaayo mar gacali sidiisa la socota uga shakinay adigu marka baarista markii la bilaabo gabar ayaa la helay gabadhii waxay leedahay anay ninkan waa isla baxsanayna waan is jecleen sidaa darteed marka gabar ur lahayd oo matageysa ayaa anag agteeda fadhiistay biyo ayaan siinay markaasaana iigu dambeysay waana hurudnay ayay leedahay gabadhan sidaa darteed marka hadda meedkan ayaa ma arko wala yaabanahay dhaaday ama ninkan iyo anigi ninkaana si nabadan xalan ku kala jeefanay baska dhexdiisa wax dhibaataana ma ana arkin haddaba markii yaa dilay markii horena waxa taagnay kiis gabar maqan oo la raadinayo kadibna waxa la arkay kiis nin baawur lagu dhex dilay oo dadna ay baawurka ay saaran yihiin atooraha marka wareerka adduunku ayuu dhexda ka galaa meel uu baaro ma yaqaan darawalka haduu baaro waxba ma dilin dadka gaariga saarnaa waxba ma dilin marka qof ayuu qabanaa qofka markuu qabto qofkii wuxuu ka ogaanaa marka shilkan qaabka uu ku dhaco wuxuu leeyahay nin aniga waxaan ka shaqeynayay maqaayad hiblaayo noocaasa gabadhan gaariga saaran iyo wiilka way isla socdeen muuqaalo ayaan ka duubay wiilkaana ay qaqashada taleefanka iga jabiyay anigana gaariga waxa u soo raacay inaan wiilkan dilo wiilkan markaan dil maagayeen wuxuu leeyahay waxaan arkay yiri asagoo meeda haddana ninkii sidaa ku dhaafaa aniga dilka ma geysan uu leeyahay marka